wixii dhacay bismillaah aniga farxii maxamed salaad halkan waxaan ka cadeynayaa in gabar yar aan dhalay iga geeriyotay isbitaalka Burco gabadhaas aan u keenay kaadida oo haysa goortii la keenay dhakhtarkana wuxuu yiri waxa ku yaala kursi intii maraysa dambiyada waxna wax laga soo galay leeyno yimi oo inta kursigeedii wixii halka leeyno yimi waxna waxa halkan Burco ee Soomaaliland dhexdeeda laga galay oo mataqaaneen taana dhalaysan uu nootayada ku sameeyay doonayeen ku usxabaalo waxa la yiri gabar baa taala magaalada isbitaalkeeda markaanu sidaas dadkii sii su'aalay waxa la yiri gabadhaas kufsiina loo sameeyay lagu sameeyay isbitaalkeena taala furtiyer bayna ku jirtaa dadkii wakiilka ka ahaa si degdeg ah ugu yimaad TV inkiisoo talaamintii haddana hawshan u dub ugu noqdo mucjiso aynaan arag ama ku yarba adduunka maqalkeedu ayaa Burco ay la soo galeen niman gaalkacay ka yimi inay yaro sagaal jira ayaa sida dhaqaatiirtu cadeeyeen farxumo ku sameeyeen hooyadeed qay ninka wuxuu keenay halkan asigoo soo fogeynaya malaadeysay qowmeedkeeda inuu sakaraado ay la socoto hooyadeed tada dhakhtarka Daarul Xanaan buu geeyay Daarul Xanaan markay baadheen waxay ogaadeen kaliya istaageen oo inanta galmo lagu sameeyay iyo dil markii dambe ka dambeeyay oo la garaacay ay sabab u tahay xanuunkeeda iyo raadahayna way geeriyootay dhaqaatiirtu waxay cadeeyeen marka inta cidii dhashayna keenan nootaayu tagay wuxuu aniga dhalay oo aabbawa dhaqaatiirtu waxay ku qanci weeday inuu ninkaasu dhalay inanta inta ku cadaysan la kale bay yiraahdeen adigoo arintiisa ku fashilatay imkana si ay dhiida gacanta ku haysay dhaqaatiirtii meedkina muddadaas u yaala ninkina waa xiran yahay wixii xariga ka soo baxa ee cadeyn ay keento ee maxkamadda cadeyso ee si ay dhiidu cadeysay dhaqaatiirtu cadeyso ayaa meesha imanaya gabadha lafteedii uu qabay asugu ee inta dhashay ninka kale u dhashay ayada lafteedii waa la wareysay ayada lafteedii wax badan bay dhaqaajisay inuu dhibta ninkeedu leeyahay ayada lafteedina uu dilay ayaa cadeysay laakiin waxa marka maxkamadda la geeyo ayuun bay soo baxayaan oo cadeynta imanaysa dambiyada waxna wax laga soo galay leeyno yimi oo inta kursigeedii wixii halka leeyno yimi waxna waxa halkan Burco ee Soomaaliland dhexdeeda laga galay oo mataqaaneen taana dhalaysan uu nootayada ku sameeyay doonayeen ku usxabaalo taasuna waa dambi kale lafteedu marka labada arimood ayaa meesha isbarkan Kasir Nuur iyo Ahmed Salaad Nuur Jaamac oo ah ehelada inantan yar oo Burco soo gaaray kana soo kici timadina magaalada Muqdisho ayaa ka warbixiyay arintan waxaana kamid ah hadaladoodii taariikhdu markay ahayd 16 bishii 2018 ayaa dhacda foolxun naloo soo sheegay dhacdadaas oo ah anagu magaalada Muqdisho joogna ayaa waxa la yiri meyd baa yaala waa soo kacna maalintii Sabtiga habeenkeedii subaxdeeda markay tahay kooda baa waxaan nimid magaalada Hargeysa ka bacdi waa ka soo tagnay waxaan nimid magaalada Burco afartii habeenimo dhacdadii marka la kulanay adigu ilaa hadda waxaan joognaa magaalada 12 bari midkaasna wuxuu noo yaalaa 12 bari dawladda Soomaaliland marka si wanaag iyo sharaf leh noo soo dhaweysay baaritaankeeda ku wada anaha waa ku qanacsanahay waxay sida ku wado waxaan rabnaa maadaama Soomaaliland meyd noo yaalo waxaan rabnaa kiiskaas in loo soo dedejiyo magaalada caasimadda ee Muqdisho maalin anagoo joogna markay tahay 8 saac oo maalmeed noo soo dhacay warar xun oo wararkaasi yihiin magaalada Burco ayay ka soo yeereen nooga soo yeereen maadaama ay nooga soo yeereen waxaan niri maxaa jira waxa la yiri gabar baa taala magaalada isbitaalkeeda markaanu sidaas dadkii sii su'aalay waxa la yiri gabadhaas kufsiina loo sameeyay lagu sameeyay isbitaalkeena taala furtiyer bayna ku jirtaa dadkii wakiilka ka ahaa si degdeg ah ugu yimaado markaanu meeshii nimid ayaan magaalada ka soo duurnay oo Hargeysa baabuurna diyaaradda keentay magaalada la yiraahdo Burco ayaan 4 saac habeenimo 4 saac habeenimo markaan nimidna waxa naloo sheegay in gabadhi furtiyer ku jirto waagii baan noo bariyay waxaan tagnay qaybta booliskana waxay nagu wareejisay isbitaalka gabadhii furtiyer ku jirta ayaa naloo furay markaan ka bacdi Xaliimo oo laga soo qaaday iyadoo dhaawaca magaalada Gaalkacyo oo dhanka Puntland markii laga soo qaadana waxaa la keenay magaalada oo dhakhtar ahaan bay waxaa loo keenay magaalada Burco markii la keenayna gabadhaasi waxa weeye dhaqaatiirta waxay keeneen isbitaalka Burco markii la keenana gabadhii halkaas ku geeriyootay dhaqaatiirtu waxay ka warbixisay gabadhaasi kufsi qarool caadi loo geystay nabarada hooyadeed ka muuqda
in lagu bahdili jiray in ay qariso falka dhacay inay qariso in lagu bahdili jiray oo ay qariso noocaas ayaa nabaradaasna loogu geystay Saciid Maxamed Faarax Dugulle oo ku xiran saldhigga magaalada Burco oo ahaa gabadha ninkeedii Farxiye ninkeedii ahaan jiray ilmahaasna uu dhalay nin kale oo hadda ka hor ay isfureen oo adeer aanu ahay oo leeyahay Cabdullaahi Salaad Nuur waxaan codsanaynaa sharciga islaamka iyo sharciga maadiga iyo sharciga Soomaaliland in ninkaas sharciga nala horkeeno si degdegna noo waafajiyo midkaasna noo nasteexeeyo godka loo geliyo Farxiye Maxamed Salaad oo ah hooyada dhashay inanta dhimatay isla markaana uu qabay ninka loo haysto kufsigan oo iyada lafteeda ay ku yaalaan nabaro uu geystay ninkaasi ayaa u warantay Saab TV kana warbixisay wixii dhacay bismillah aniga Farxiye Maxamed Salaad halkan waxaan ka cadeynayaa in gabar yar aan dhalay iga geeriyotay istaalka Burco gabadhaas aan u keenay kaadida oo haysa goortii la keenay dhakhtarkana wuxuu yiri waxa ku yaala kufsi dhakhaatiirtuna waxay cadeysay kufsi inay u geeriyotay dawladda Soomaaliland waxaan ka codsanayaa falka cidii geysatay in sharciga hor keento